waxa ku dhagoobay xayawaanadii gobonimo-doonka ahaa ee beerta Mr Jones ereydii Guhad Cabdi Gaheere ee ahaa good iyo abays baa isbedelay garana maysaane goraygii ilmihii buu ka tagay guumiska ahaaye gocondooyin baa aasan iyo mici gabaareeye karalkaama guurine halkan uu guud madow yahay buugga beerta xayawaanada waa buug oo qoray qoraa British ah George Orwell kaasoo ku dhashay 1903 dalka Hindiya magaca dhabta ah ee qoraaga waa Eric Blair buugga Masracati al-Xayawaan ama beerta xayawaanada waxa la daabacay markii u horeysay 1945 waxaana loo aqoonsaday inuu ka mid yahay boqolka novel ee ugu saameynta badan caalamka walow ay ka soo wareegatay daabacada buugga in ka badan nus half qarni haddana buugga waxaad moodaa inuu si dhab ah kaga hadlayo waaqaca ay maanta ku sugan yihiin dowlado badan oo xur ismooda dhadhamis waa barnaamij hadafkiisu yahay soo dhaweynta dhigaalka iyo dhiirigelinta dhalinta waxaana ku soo gudbin doonaa midda murtida ku jirta hadba buuggii aan u aragno inuu xambaarsan yahay macno iyo maandhis haddaba si ay kuu soo gaarto xalqad kasta ee cusub fadlan subscribe dheh channelka lana wadaag saaxiibada buugga Animal Farm oo ku hadlaya luqadda xayawaanada ayaa waxay shakadiisa ku dul wareeganaysaa beerta Mr Jones oo ku taala bartamaha Ingiltara habeenada kamida ayaa Major oo ah doofaar duq ah oo waayela ayaa wuxuu isugu yeeri xayawaanada kale waxaana u jeedin khudbad xamaasad lahayd taasoo gundhigeedu yahay iska dulqaada heeryada gumeystaha basharka khudbada kadib waxa u iman geeri oo u dhiman Major hayeeshee muddo yar kadib waxa mar kale soo nooleen shararada kacdoonka xayawaanada laba doofaar oo ku tilmaamnaa aqoon iyo caqli kuwaas oo kala ah Napoleon iyo Sanapol iyo Napoleon waxay ku guuleysanayaan inay dib u abaabulaan xayawaanada kuna abuuraan ruuxda kacdoonka waxay beerta ka ereeyaan Mr Johnson waxayna ku dhawaaqayaan xorriyad iyo inay iskood isku maamulaan xorriyada kadib waxay xayawaanada si wadajir u soo saarayaan dastuur ay ugu magac dareen mabda xayawaani ah ama animalism kaasoo ka kooban 7 dardaaran waxaana u muhiimsan laba lugoodla kasta waa cadow halka afar lugoodla kasta oo yahay akhyaar sidoo kale xayawaanada waxaa ka mamnuuca inay sariir ku seexdaan sida basharka suxuun wax ku cunaan qamri ay cabaan laba lugoodna ku socdaan xayawaanadu way siman yihiin mana jiro xayawaan dili kara walaalkii xayawaan ah qodobada ayay degsanayaan waxayna ku dhajinayaan barxadda kulamada ee beerta hayeeshee muddo kadib Napoleon ayaa waxa uu ka maseeri Sanapol oo ahaa xayawaan daacad u ah xayawaanada kale aqoon badan mufakkir ah markastana kusoo kordhiya beerta horumar iyo horsocod Napoleon waxa uu taqdiidin ama ka fakiri sidoo Sanapol inqilaab ugu sameyn lahaa beertan u wari lahaa waxa uu ka qaadan eeyo yaryar oo marka dhashay hooyooyinkood si gaar ah ayuu u korin una tababari markay weynaadaanna waxa uu ku diri si lama filaan ah Sanapol sida ayuuna beerti kaga eriyay waxay beerta galaysaa beerta xayawaanada xaalad kali talisnimo Napoleon waxa uu ku soo rogay xayawaanada kali talisnimo iyo amara adag markii dambe wuxuu ku xukumay qaar kamid ah xayawaanada oo u arkay inay ka hor imaan karaan afkaartiisa dil toogasho kaasoo mamnuuc ka ah xayawaanada sida ku qoran mabda'ooda animalismka dabcan xayawaanadan waxay galayaan markii dil toogasho lagu xukumo qaar kamid ah walaalahood ayagoo ku ballamay in xayawaanka uusan dili karin walaalkii xayawaan ah xaalad cabsi iyo murugo leh waxa dhamaanaysa farxadii thawrada iyo kacaanka sidoo kale doofaarada waxay isku muujinayaan inay yihiin kuwa ka fadli badan xayawaanada kale waxay la imaanayaan tasarrufaad qariib ku ah xayawaanada kaasoo dhammaan jabinaya dastuurka iyo degsadan ee animalismka waxa la arkayaa doofaarada oo ku libisan suudad iyo dharkii basharka sidoo kale ayagoo laba lugood ku socda labada kalena qamar ku cabaya waxay degayaan gurigii ay Jones ka buriyeen waxayna ku seexanayaan sida bini'aadanka ama basharka sariirtii Jones waxa intaasi dheer in la arkayo maalmaha kamida ayagoo saxuun wax ku cunaya sidoo kale waxay cilaaqad la sameysanayaan basharka ama beeraleyda kale ee ku dhow beerta xayawaanada taasoo u muuqanaysa in dhammaan doofaarada ay u ekaadeen tasarrufaadkooda iyo macaamiladooda sida basharka dabcan arinta xayawaanada aad ayay u murjin way ka fikiriyaan mar alla markay isku dayaan inay banaabax sameeyaan oo ka hor imaadaan ficilada doofaradana waxa jira doofaar la yiraahdo squealer kaasoo ka dhigan saxaafada kale taliyaha oo caan ku ah aftahanimo squealer hada markasta ay xayawaanada isku dayaan inay ka hor yimaadaan fikradda doofarada waxa u jeedin khudbad
taasoo inta badan uu ku soo xasuusin dulmiga uu ku henjiray basharka waxauna yani markasta ku soo gabagabeyn waxa uu leeyahay si walba oo Napoleon idin dulmiyo oo idin ku takrifalo fi nihaaya waa walaalkiin xayawaan ah oo waa doofaar sida ay xayawaanadii ku dagayaan ilaa markii dambe ay talada gacantooda ka baxdo oo Napoleon yeesho eeyo badan oo xiraasa ah awoodiisina ay noqoto awood aan yani xayawaan ka hor iman karin buugga Animal Farm ama beerta xayawaanada ma aha buug ku haboon dhadhamis oo waa buug ay lama huraan tahay inuu aqriyo qof kasta oo raba inuu wax kala socdo yani thaqafada caalamka buugga waxa ka baran kartaa ama ka heli kartaa maad iyo maandhis maadaama buuggu uu ku hadlay afka xayawaanada sidoo kale waxa uu ka hadlayaa guud ahaan kacaanka yani kacaanada iyo sidii ku asaasmaan cirib xumida yani ka dhalan karta kacaan kasta oo la wareego kali taliye gaar ahaanna wuxuu buug ku saabsan yahay ama uu taariikheynaya kacaankii Russia dhammaan shakhsiyaadka sheekadana waxa ay matalayaan shakhsiyaad xilliga caanka dhex ah Russia sida Jones oo kale waxa uu tusaale ka yahay yani qaysarkii Nicholas ee laga eriyay carshiga Napoleon wuxuu tusaale ka yahay Joseph Stalin dhawaan xayawaanada kale waxa ay dabcan ka turjumayaan shakhsiyaad xilliga caanka dhex ah Russia sidoo kale doofaarka Squealer waxa uu ku matalaya buugga saxaafada kale taliyaha oo markasta yani u taagan inay shacabka habaabiso una sheegto been iyadoo manfaco gaar ah yani fiirsanaysa dameerka Benjamin oo kale wuxuu tusaale ka yahay aqoon-yahanada aan ka hadlin dhibaatada iyo gabadfalka ay sameystaan la yimaadaan kale taliyayaasha sidoo kale Boxer oo ah faras yani caan ka dhex ah sheekada yani ayaa asagana tusaale ka ah shaqaalaha dawladda kuwaasoo si niyad-sami ah u shaqeeya dadaala waxna aan kala socon siyaasadda guud iyo majara iyo jidka ay ku socoto yani dawladda wuxuuna fi nihaaya buugga ku baraarujinaya yani dadka akhristayaasha inay ilaashadaan kacaankooda iyo thawradooda iskana ilaaliyaan kali taliyaha si noloshooda u ahaato mid ku dhisan يعني شورو iyo wada tashi dabcan buugga waxa laga mamnuucay dalal badan oo caalamka markii uu soo baxay waxaana kamid ah dalalkii mamnuucay Kenya oo dabcan u arkaysay inuu kicin karo shacabkeeda maadaama mirihi xorriyadda ay isku gaar yeeleen qoys kale taliye ah ama qoyska ala Kenyatta ama anaga ka Soomaali ahaan halkeena waa allahu sahal dhamaan saaxiibada Ingiriiska wax ku aqriso waxaan ku dhiirigelinayay raadiyaan buugga nuskhadiisa asalka ah Animal Farm inta carabi wax ku aqrisana masracada alxayawaan ay raadin karaan inta labada waxba ku aqriyayna insha Allah inta aan ka helayno qof uu istaaga tarjumida buugga oo dhameystiran waxa ku filnaan doonta xalqada dhadhamis aniga waa baal waa sugo oo idinkaga tagay sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum.